السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكم أنتم حامرتي وجاء dad aad u qiimo badan aad u sharaf badan barnaamijkan wuxuu noqonayaa mid aan isxaal wareysanayno wada sheekeysanayno iyo waxyaalo kale oo barnaamijka dhaxaltaal u noqonayo ugu horeyn intaan barnaamijkeenu bilaabin aan soo dhaweeyo martida aadka u qiimaha badan fadlan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ما شاء الله وأنا walaalkay Sidiiq aad baan u dhawahay maxsant waxaa macquul mar labaad mar saddexaad soo dhawaada in dad aad tiro badan ay garanayaan ay yaqaanaan haddana waxaa macquul in dad kale aysan aqoon saa idin lahayn marka ugu horeyn waa kuma su'aasha marka labadiinba way noqosaysaa labadiinba way dhaxtaalaa waxaan ku hormarayaa Cali waa kuma Cali Faatix وكما علي فاتح وكما جوجا علي فاتح كل شيء من هذا مقال كشمالين كبرتين من على الدهر كنا المقالة نيروبي ابن عبد الله شدو وكما ابن عبد الله ابن عبد الله وأنا كم كل هذا اليومي مقعي ويحيى عبد الله السمتر مس سحيب عبد الله السمتر وحنا هاي أرضي dugsiga hoose iskoolka hoose dhexe sare kaga baxay wadankan Kenya barta hadda jaamacad magister alxamdulillah ahna daaci miskiina oo diinta faafiya ma sha Allah aad u maasantiin in badan waxaad loodinba waxaad kamid tihiin dhalinyarada isticmaala baraha bulshada qaasatan waxaad u badan tihiin ama bulshada kula hadashaan wax ku soo bandhigtaan wax ku soo gudbisaan aaladan lagu magacaabo TikTok haddana barnaamijyada aad soo gudbinaysaan labadiinba waad ka siman tihiin oo barnaamij khayr iyo wanaag faafinayo maxaad ku doorateen barnaamij daacinimo inaad noqotaan ama inaad khayr ka faafisaan oo bulshada gaarsiisaan barnaamijkaasi maxaad ku doorateen fikir noocee ugu dhaliyay ma qofka kugu dhaliyay mase fikir adiga kugu dhasho oo hal maalin aad go'aankaasi qaadatay ama waxaad aragtay adigoo aaladan dhex mushaaxayo fadlan Sheekh Cali الله بركاته أخي هرتا سؤاشا وجيب لنا سكيرة كرتها لكن متك أقوله ساد وقتهين أنا دليل هذا تيك توك حكيت على فساد على فربا صح ومش أقول بعض بعض إيه معناتها تذكر أيوب أحيانا اللي بعدين صح وما له سوق اللي يرد يبدأ يرتاحي ومدي حمانتي ودينا يسوق مانتي سادرت هذه خسبتي سي عندك حمانتي ولا كريم إن شاء الله ولا من أمورنا نفس هذه هاي خسبتي إنه أسوق أنا وحي إلهي دينتا بالكريسيو عن كاكا شاكنا بس على الأقل حدي حتى أي نوغة بدايين أنا وقيب أولا نقولنا وغفك لكتي سميرك وحلوه سوشوان ما شاء الله ما شاء الله استاذ تفضل انت وشيغ walaalkii Ali Faatix inta way aniguna laakiin waxaan ku darsanayaa aaladan aniga waxay igu kalifay inaan soo galo oo aaladan TikTok aan muuqaalo soo dhigo waxay igu kalifay waxaan doonayaa kuwa liibaanayna ka mid noqdo إلهي بوحي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مركا كوانا وكوا اللي باني مركا أنيجي ورالك على فاتح يو كوا خير كسوق بيد ما تود تدك أي دونين النقدان إلهي بقلوب تأوك لكن سي وحن دونينا وحوية إن تدك اللي باني عن كم بدنقمه إن شاء الله ما شاء الله نحن وجود بين سؤالين سدحات ما شاء الله شيء والبولا قوانايو أما والبولا قوانايو قصب wuxuu leeyahay caqabad haba yaratee haddana wixii haduu yahay wax bulshada loo qabanayo caqabadiinkiisu aad bay u tir badnaan karaan maadaama aad bulshada soo gudbinaysaan TikTok-na haddana fasaadka iyo fasiqiga uu ku badan yahay idinkina aad wanaagii khayr ku faafinaysaan ma jira wax caqabadooyin xilliyada qaar la kulantaan ama bulshada aad kala kulantaan ama ha noqoto wax adigu shakhsi ahaan ku quseeyo oo qaas ku noqonaya haddana la wadaagayso caqabadooyinkaasi bal inuu taabto mid kamid ah شعالي فضلا أخي هرتا عقبضه هرتا وحوين ودي عقبضه ما جرتو وماشا وحنا قد حيا لها ملأ مقال ما ضمن ضمن كبحنا مركا لكن هذا بان وحشاهو وحكم إذا تذكي ولا له هذه الصوماليات كوتشري آلة كوتشري إن لقد ألغي فكر خلطان فكر خلطان وأحد يوقفك حمانة السماين أيو ووح حمانة صور لغانا وافني haddii qofkii wanaaga sameeyay wax wanaaga soo dhigan waa qof caadis marka aqoonta ugu weyn hadaad qof khalad galay ka soo hadasho waxa lagu dhahayaa waxaad ku raadsanaysaa caanimaad ku raadsanaysaa marka aqoonta inta ka weyn oo hadda aniga khaasatan iga soo martay aadan
ma jirto. markii aad wax soo gudbiso oo haddana bulshada aad wax usoo gudbisay ayaa kala kulmaysa caqabadooyin fikrado ay aaminsan yihiin inay kula lifaaqaan waxa marka aad samaynayso ama waxaad soo gudbisay. يعني adigu waxaan laga yaabaa inaad daacadba ka ahayd dir ilaahay buu soo dhigaysa sax oo qofka walaalka ah inaad naar ooga digto sax darteed u soo dhigaysa ayaa waxaa laga yaabaa dadkii inay fikir khaldan qaataan oo arrintan waxaa keenaysa ikhlaaskii oo aad ugu yaraanaya mataqaanaa dadkeena dhexdiisa oo dee qofku suu asaga yahay qofka ku qiimeynaya haddii asagu uu soo yahay inuu wuxuu soo dhigayo uusan daacad ka ahayn ilaahay gartay ka ahayn wuxuu ku qiimeynaya qof walbaba oo arrintan soo dhigay inuusan daacad ka ahayn oo caanimo iyo wax la mida ku raadsanay bal yani على الأقل waxay in cadaalad la sameeyo oo kan xumaanta wada markuu xumaanta soo dhigay in la yiraahdo caanimada raadsanaysa laakiin waxa aad ka iga yaabay waxa weeyay kii xumaanta sameeyay waxa leeyahay waa fani adoo kale waa fani adoo kale lama helo qosolka leeyahay kii xumaanta wadana waxa leeyahay madiintii baa fiyus ka shay macaanimada raadsanaysa iyo wax marka waa fikir aad u khaldan oo ummadda u baahan in laga dhaqo ma sha Allah sax aad u dhaxgalay marka waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala maalmaha kamid inuu fikirkaas ilaahay inta walaalka sheegay mataqaana waa arrin jirta weeye oo arrin waxaa weeye jirta maanta waxaad arkaysaa qof khayr iyo wanaag soo gudbinaya oo qof uga digaya mataqaana cadaab iyo ciqaab uga digaya rabbi qofkii uga digayay qofka kale ciqaabta iyo cadaabka rabbi waaninayay ayaa waxaa la dhahayaa fiyuus iyo caanima ku raadinaysaa qofka kale bilaa calayk markee bay noqotay in waano la iswaaniyo caanimo lagu raadiyo wallaahi ma aqaan waxay maraysaa waqti la dhahayo xumaan walba ayaan qasanayaa walaaqanaya igama hadli kartid ima waanin kartid war qoomamkii hore maxay u halaagsameen yaa qoomamkii hore dee xumaanta iskamaysa reebi jirin badankood xumaanta isku fiirsan jireen marka haddii walaalka aad xumaanta ku fiirsatid dee waxay caddaynaysaa astaanna u tahay inaad necab tahay marka annaka quluubteenna nacayb kuma jiro quluubteenna waa quluub saafiya marka qalbigaa saafida ah ayaa u damqanaya walaal kale marka adigii haddii qalbigaadii dee xaasinimo uu ka buuxo qofka qalbiga saafida leh walaalkaa kale u digaya ka aamu hataa haddaadan dhehin waa ilaahay soo hanuuniya walaalka ilaahay mataqaana qofka waaninaya ha soo hanuuniya inta haddaadan dhehin hataa aamu laakiin qofkii wax waaninaya haddaad tiraahdid maxaa kaa galay maxaa kaa khuseeya mashaqadaada maxaa ku tusay inta haddaad tiraahdid dee waxaad afka soo marisay un wax qalbigaada ku jira waxa afka soo marisay un wax qalbigaada ku jira marka dee inaad walaalka cadaab iyo naar iyo dhib iyo halaag iyo baaba iyo khasaaro aad la jeclaatidna dee qalbi adeeg bay turjumaysaa marka sidaa baan leeyahay arrinta kale aan ku darsanaya ani ahaanteeda caqabada aan kala kulmay aaladahan wax kusoo gudbinayo waa editinka waaye editinka inaad muuqaal hagaajisid dhibaato badan bay leedahay inta garanaysaa maalinka kugu horeeya teleefon qaadid aad teleefon wax ku duubtid walibana teleefonka aad wadatid uu yahay mid mataqaana kamaradiisu aysan fiicnayn waxaa isweydiinaysaa applicationkee ugu fiican wax lagu duubaa kee wax lagu edit gareeyaa dad baa u tegaysaa dadkiiba caqabado kala kulmaysaayo qaarkood ku diidaya qaarkood ku dhahaya baxna dhaaf qaarkood lacag kugu xujaysanaya aadan hayn marka ma tilmaami karo saacad dheer bay igu noqonaysaa haddaan ku dhaw waa tilmaamayaa laakiin si caqabadan kala kulmay ani naf ahaantayda waxa weeye arrintaas wey editinka ah arrinta walaalkaygana intaan ku darsan karaa ayaa ku darsaday waxaan leeyahay uun dadka wanaagga soo gudbiya haddii qofay xumaan ka reebaan xumaantaana iska ilaali ay dhahaan waxaad tidhaahdaan haa walaal waa runtii xumaanta iska ilaali haddii kale afkaada hayso dembi intuusan kaa soo gaarin asalaamu calaykum taawaa kaga baxay runtii aad u mahadsantihiin in badan waxyaalo badan waad faalayseen oo tusaalooyin badan waad ka bixiseen si aan wada ognahay tiktoka waxaa ku badan fisqiga markii loo eego markii lala bardhigo xumaanta fisqiga ku badan dadka xumaanta soo gudbiyo waxay ka jiri badan yihiin dadka khayrka soo gudbiyo dadka xumaanta daawado oo xumaanta taageero waxay ka jiri badan yihiin kuwa khayrka iyo wanaagga taageero oo daawado sidee marka qofku iska ilaalini karaa hadday noqoto qofku kan wax soo gudbinayo oo wanaag soo gudbinayo iyo kan wanaaga xiiseynaya ama dadka wanaaga
wanaaga ku taageeraya sida markuu iska ilaalin kara inuu ku dhex milmo aaladan fasqiga ka buuxo shacali بارك الله فيك أخي horta iska ilaalinta arrimaha la iska ilaaliyo waa hal arrin halka arrin waxa weeyaan waa inaad ka fikirto ciribta ka dambeysa shaygan aad samaynayso imaam shaafici raxmatullahi tacaala caleyhi hadaladiisa waxaa ka mid ah waxaa kasoo gaaray culimadii hore in lam tastaqil nafsaka bilkhayr shaqaladka bilbaatil haddii aadan naftaada khayrka iyo wanaagga ku mashquulinin waxaa kugu mashquulisaa wax baatilka marka waxa ugu horeeya waa inaad ilaahay uga cabsato subxaana watacaala iyo inaad naftaada u samayso wax wanaagsan ood ku mashquuliso xumaanta aada ugu badan inta wanaagga sheegto waa la tirin karaa 1 2 3 4 la dhihi karaa haddii xumaantii ku badan tahayna dee macnaheedu waxa weeye meesha aqlabiyad baa lagu haystaa xoog baa lagu haystaa meeshii dadkii xumaanta sheegaya haysta tiktokan wuxuu kaga duwan yahay aaladaha kale waxa adiga rabtid ayaa search garaynaysaa waxaasa ku soo baxaya youtube-ka oo kale markaad gashid browserka ugu horeeya waxaa ku arkaysaa muuqaalada recommended waaye muuqaalo kuu soo baxay un waaye oo markaa ku dhufatid aad gashid ayaa daawan kartaa tiktoka wuxuu kaga duwan yahay aaladaha kale waxa weeye hadda dee youtube-ka short bay u suubiyeen laakiin shortka kama hadla youtube-ka mataqaana ay samaysay iyo instagram-ka waxaa kama hadlayo youtube-ka iyo instagram-ka waxa adiga uu qasaday badana ayaad aadayo raadisaa laakiin tiktoka markaad gashid saanta u gadisid muuqaala ku soo baxayo aad rabtid mise aad rabinba wax uu ku soo baxaa meesha waa wax ku soo baxay ilmaana wuxuu kugu qasbayaa in marka haddii aad gashid xumaan ku soo baxdo xumaanta dee ku soo baxday weeye marka arrintan dad waa u sheegay walaalahaya tiktoka waxaad kala dagaalami kartaa horta inay muuqaalo xun ku soo baxaan oo aad aragtid waxa kala dagaalami kartaa waa in muuqaalada xun aad isdhaafisa hadaa isdhaafisay tiktok wuxuu ogaanayaa inaadan waxan xiisaynin inaadan rabin waxan ayuu ogaanayaa markuu ogaado waxan inaadan rabin wixii buu ka yareenayaa haddii aad xiisaysid quraanka markuu ku soo baxo aad dhammaystiratid wuxuu isku dayaa tiktok mar walba tiktok soo gashid inuu quraan ku soo saaro meeshii marka dadkay ku xiran tahay haddii dadku ay doonayaan in xumaan ay daawadaan wuu soo baxaya xumaanta si joogto ugu soo baxaya quraankii diintiina oo ka yaraanaysa u soo bixi jiray marka horta waxaan leeyahay dadka daawadayaashu tiktok daawanaya xumaantan iyo fisqiga batay say ugu hortagaan waxaan dhahayaa waxaad daawanaysaan xakameeya xumaanta ha daawan ha dhammaystiran haddaad dhammaystiratid kan soo geliya ayay faa'iido u leedahay adiga waxa u dhammaystiratay haddaa weydiis waxay ku dhahayaan waxaan u dhammaystirtay cajab waa la yaabay waxa soo geliyay xumaanta soo geliya la yaabanay si uu sameeyo xumaanta bilaa calayk bedelkaad la yaabi lahayd inaad iskaga cartid baa fiican waayo kan uu meesha soo geliyo wuxuu u soo geliyay inaad la yaabtid oo dhammaystiratid meeshaasna uu ka helo watch time hour sidaana muuqaalkiisa uu qorxo marka qayb iyo dee baal weyn buu ka qaatay qofkii hadduu muuqaalka qofka dhammaystirtay in xumaanta ay faafto kii daawanayay ayaa qayb ka qaatay in muuqaalkaas iyo xumaanta iyo fiskiga dad badan u gaaro marka kan keliya ee looga hortagi kara waxa weeye markaad aragtidba waxba ribood iyo waxa hadhihin markaad aragtid xumaan iyo qurun kaa soo horbaxay dhaafi taasaa dhaawac iyo xanuun ugu filan